السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha qaaliga janalkayga ku xiran meelba aad joogtiin waa idin salaamay jimco mubaarak ayaa idin leeyahay kusoo dhawaada waa janalkeena Sacduush Cooking Channel ugu horreyn intaad ku cusubtaa kusoo dhaweynayaa subscribe noo taabo gambarka rukumo hadaan ugu cusubtahay soo dhawow like share comment ka ilaabin insha Allah asxaabi maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago bariis biryani rabaa inaan kariyo ugu horreyn waxaan dabka soo saaray waa hilib ari haddaad jeceshahay chicken waa ka dhigan kartaa wax mushkilad ma lahan hilibka si fiican aan u soo kariyay waan soo shiilay markaad waxaan ku daray waa yaayo soo shiiday kadib waan soo filtray marka insha Allah tacaala hadda waxaan ku darsanaynaa shiishiid biryani hilib arigan waa lagu karsadaa chickenka caadigan waa lagu karsadaa marka waxa oo yacni markaas aad heli kartid aad ku karsanaysaa dhib ma lahan markaad waxaa suganaynaa hadduu ilaahay idmo intuu nooga soo karo yaayada hilibku wax karis badan uma dhigno waxoogaa yar wuu jilcan yahay marka insha Allah tacaala hadda waxaa sugaynaa ilaa iyo nooga soo karo yaayadan ay isku soo shiilmaan gobol maraq digaag ku dareena waana daboolanaynaa soo dhawaada asxaabtayda asxaabay waa kana si fiican u soo karkaraya markaad waxaan diyaarsaday kabsar caleen iyo tuun iyo xawaashyadii yaanyadu way soo gursatay biyo labaad ku daray marka cabaara ka maqnaa insha Allah hadda caraftiin ku darsanaynaa asxaabay ugu horreyn waxaan ku darsanaynaa 2 qaado yoogade yoogad aad haysanin dib ma lahan baleen yoogada isticmaalaya waxaan kaloo isticmaalayaa kabsar caleen iyo tuun aan isku soo tumay suugada aad karsanaysid ay caraf aad ku darsanaysaa ay caraf adiga aad jeceshahay oo markaas ay xiiseynaysaa ku darsanaysaa xawaajiga oo bariis biryani loogu talagalay taa haysatidna waa ku daraysaa haddaadan haysaninna mushkilad ma lahan uma baahnid hadda waxaan ku darsanayaa wax yar oo paprika ah waxaan kaloo ku darayaa bariis macee waaye waa maraq digaag iyo qudaar la isku soo shiiday oo diyaarsan inta badan Soomaaliya waxa laga dhahaa bariis macee waxaan kaloo ku daray xawaash oo isku dardare waxaa ka mid ah xawaajiga loogu talagalay bariis biryaniga insha Allah intaan rabaa hadan inaan isku soo shiilo oo markuu gursado aan yani waxaan ka dhigo dabka aan ka damiyo waxaan ku soo daray heel insha Allah waxaan sugayaa dhacanka intuu ka gursado haduu ilaahay idmo asxaabi hadda waxaan diyaarsanaynaa bariiskeeni biyo dabka soo saaray waxaan ku darayaa xoogaa yar oo saliid ah waxaan kaloo ku dareynaa qorfo iyo heel dhagayaraha taas ku darsan kartaa laakiin ani hadda dhagayar iima yaalo marka qarfiye heel iyo saliidan ku daray waxaan kaloo ku darsanaynaa cusbo yar ku dareynaa ilaa uu nooga soo karkara sugeynaa haduu ilaahay idmo waa kana asxaabi waa noo soo karkaray hadda waxaan ku daray bariiska waxaa la rabaa biyaha inuu aad ay ugu badan yihiin waayo hadhow sida baastadii oo kale u miiraysaa markuu xoogaa ku karo bariiska isticmaalaya waa nus kiilo marka ilaa xoogaa nooga soo karo aan sugeynaa
asxaabi hadda waxaan haysta basal, 2 xabo basal waaye, waan soo jarjaray, waan soo nadiifiyey. Marka saliid yar waxaan rabaa inaan ku shiilo oon kalar yar goldi aan ka dhigo hadduu Ilaahay idmo. asxaabi waa kana bariiskii wuu ii soo karay. wax badan dabka ma saarneen waayo awalaa biyo qandacay aan la dhigay markaan dhaqay ilaa 5 daqiiqo kale aan biyo qandac la dhigay. hadda hoos waxaan dhigay suugadii saliid fiican ay leedahay. bariiska laakiin qallayl waaye, wax saliid oo oo hadda ka muuqata ma lahan. saliid waa ku daray laakiin aad ay ugu yareed. marka suugadan hoos dhigay kadib waxaan dul saareynaa bariiskii. wax aad u fudud waa bariis biryaaniga. waxaan rabaa suugada dhan inaad ku qarisid. kadib aniga waxaan haystaa ukun. asxaabi videoga igu kala go'ay. waa kana suugadii soo daboolay qaybta koowaad wali mareynaa. waxaan saaray basashii. kaamirada iftiinka saaid ku basasha inay gubatay u malaysaa laakiin ma gubanin. kalar yar qurux badan ay noqotay. marka 2 xabo waxaan saaray ukun. kadib waxaan saareynaa suugadii. saana ku soo wadina asxaabi. asxaabi waxaan kusoo daray food color 3 nooc waaye. waa jaalo ama safaraan iyo gaduud iyo cagaar intaas waaye. kadib waxaan saareynaa bacda yar aluminiumka. ugu yaraan waxay dabka huuriska noogu jiraanayaa 45 daqiiqo ama 1 saac kaamil ahaan dabka u daynaynaa. dab yar oo waxaan saareynaa nuxuus waan ku huurineynaa. marka insha Allah markuu ka soo baxo isku soo laabaneynaa. asxaabi hadda waan ka soo dejiyay. 1 saac kaamil dabka saarnaa. dab badan ma ahan wax yar oo huuris waaye. insha Allah hadda waan gidinaynaa sida uu soo baxa fiirineynaa.
kana suugadii asaa waxaan rabaa wax yar inaan isku labo. aadna wuu caraf badan yahay maasha Allah waaye. wax yar waa isku labayaa kadib waan soo guranaynaa. maasha Allah asxaabi waa kana sidaan quruxda badan loo ku soo baxay maasha Allah caadi ma ahan wuuna caraf badan yahay waxa ku dhahay lagama sheekeyn karo. ay design adiga aad jeceshahay u samaysan kartaa haddaad rabto caadi u ridinaysaa haddaad jeceshahay baaquli inaad ku shubatid aad sidaan ka dhigan kartaa. insha Allah tacaala asxaabi inaad ka hesheen ayaan wada rajeynayaa dhammaantiina meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay nabad iyo caafimaad ku waara fi amaan illah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.